sanadkii 1938 Jarmalku wuxuu mas'uul ka ahaa 12% wax soo saarka warshadaha caalamka, isaga oo ku xigay Mareykanka iyo Midowga Sofiyeetka ee Ruushka. Sanadkii 2020 Jarmalku waxa uu soo galay kaalinta saddexaad dhoofinta ugu badan dunida, oo ku leh saamiga 7.9% ganacsiga caalamka. Run ahaantii horumarkan wuxuu muujinayaa in taariikhda warshadaha Jarmalka aysan weligeed joogsan. Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada Gofgara Podcast meel kastoo dunida dacalada kaga sugan tihiin. Mowduuceena maanta Jarmalka laga bilaabo kacdoonkii warshadaha ilaa iyo awoodda dunida dhaqaalaha. Mowduuceena maanta aan ku garfoon doono halkan YouTube-keena magacayga waa Idionis, halkana waa Gofgara Podcast. Haddaba haddaan mowduuceena guda galno, horumarka warshadaha ee Jarmalka waa run ahaan taariikh muhiim ah oo ku suntan sooyaal fiican oo ku salaysan hal abuurnimo, adkaysi iyo isbeddel. Laga soo bilaabo qarnigii 19aad Jarmalku wuxuu noqday mid ka mid ah hogaamiyaasha kacaanka warshadaha, wuxuuna si joogto ah kaalin ka geystay dhaqaalaha maanta. Mowduuceena maanta waxaan ku eegi doonaa dhammaan tallaabooyinka ay qaadeen ee waaweynaa ay ku horumariyeen warshadaha iyo waqtiyadii iyo tijaabooyinkii ay geliyeen iyo isbeddeladii waaweynaa ee Jarmalka uu sameeyey waqtiga uu noqday kacaanka warshadaha wax soo saarka. Haddaba qodobkeena ugu horeeya waxa uu dul taagi doonaa bilowgii warshadaynta Jarmalka 1830 iyo 1870. Warshadaynta Jarmalka waxay bilowday waqti dambe marka loo eego wadannada ama dalalka Yurub sida Ingiriiska. Si kastaba ha ahaatee, laga bilaabo 1830 waqtiyada gobolka sida loo yaqaan Ruhr iyo Somme waxay noqdeen horumar waxa loo yaqaano xarumo warshadaynta ku xoogan, iyaga oo ay run ahaantii ugu waaweynayeen qaadista dhuxusha iyo birta. Sanadkii 1850 Jarmalku wuxuu soo saaray qiyaastii 2% dhuxusha caalamka, tiradaasoo run ahaantii kor u qaaday ilaa ay soo saareen 20% sanadkii 1870. Xilligaa sidoo kale waxay aasaaseen waxa loo oran jiray Zollverein oo ahayd urur kastama oo fududeynayay ganacsiga u dhexeeya dowladaha Jarmalka. Run ahaantii horumarkan ayaa gooldhig u noqday mideynta dhaqaalaha iyo siyaasadda oo dardargelisay warshadayntii Jarmalka. Qodobkeena labaad waa kacaankii warshadeed ee kadib midowgii ay sameeyeen 1871 iyo 1914. Midowgii Jarmalka ee 1871 uu hogaaminayay Otto von Bismarck wuxuu run ahaantii noqday marxalad cusub ay gashay abuurista boqortooyo Jarmalka. Waxay keentay suuq weyn oo mideysay. Intii u dhaxaysay 1871 ilaa iyo 1913 dhaqaalaha Jarmalka wuxuu kacay run ahaantii wuxuu kor u kacay celis ahaan 4.1%
sanadkiiba. Warshadaha kiimikada, birta iyo korontada ayaa si xawliya u ballaaday ama u ballaaday waqtiga. Tusaale ahaan sanadkii 1913 Jarmalku wuxuu soo saaray boqolkiiba 50 waxa loo yaqaano kiimikada adduunka. maadada loo yaqaano kiimikada adduunka soo saaray boqolkiiba 50. Run ahaantii si kastaba ha ahaatee kor u kaca degdega ah wuxuu abuuray xiisado gaar ah oo run ahaantii ka mid tahay kor u kaca dagaalkii koowaad ee adduunka. Haddaba qodobkiina saddexaad wuxuu miiska hoos ka xariiqayaa caqabadaha dagaalka caalamiga ah ee 1919 iyo 1939. Dagaalkan koowaad ee adduunka kadib dagaalkii koowaad ee adduunka kadib Jarmalku wuxuu waajahay burbur dhaqaale oo ay ku jirtay sicir barar kii weynaa ee 1923 iyo musiibadii dhaqaalaha ee 1929. Si kastaba ha ahaatee mudane iyo marwo 1930 waqtiga Jarmalku wuxuu bilaabay kasoo kabashada warshadeed iyada oo ay ugu wacnaa siyaasad xumada dowladda ee ku lug lahayd. Sanadkii 1938 Jarmalku wuxuu mas'uul ka ahaa ama wuxuu soo saaray boqolkiiba 12 wax soo saarkii warshadaha caalamiga isaga oo ku xigay Mareykanka iyo Midowga Sofiyeetka. Horumarkan ayaa si gaar ah diiradda u saaray warshadaha dagaalka taasoo horseeday dagaalkii labaad ee adduunka. Qodobkiina afraad waa dib u dhiskii kadib 1945. Guuldaradii 1945 ayaa Jarmalka run ahaantii burburisay laakiin awoodda wuxuu bilaabay inuu dib u dhiso oo dib isku xoojiyo gaar ahaan Jarmalka galbeed oo ka helay taageero Plan de Marshall ama Marshall Plan intuu u dhaxaysay sanadkii 1950 iyo 1960. Haddaba wax soo saarka warshadaha ee Jarmalka galbeed wuxuu kordhay run ahaantii boqolkiiba 200 kuwaasoo shirkadaha sida waaweyn ee Volkswagen iyo Siemens ay ahaayeen astaamaha ay u noqdeen dib u soo kabashadii. Labadan warshadood ayaa run ahaantii shirkadaha waaweyn ayaa ka qayb galay inay dib u soo kabashadaan. Marxaladan ayaa gooldhig u noqotay mucjisada dhaqaalaha Jarmalka. Haddaba qodobkeena shanaad waa midowgii Jarmalka iyo waqtigii dambe 1990 iyo 2000. Midowgii Jarmalka ee 1990 wuxuu noqday caqabad kale oo ku biiratay dhaqaalaha shuuciga ee Jarmalka bariga taasoo hoos u dhigtay waxa loo yaqaano korkaadka ama soo kabashadii dhaqaalaha. Si kastaba ha ahaatee 1990 waqtiyada Jarmalku wuxuu dib u xaqiijiyey hogaamintiisii warshadeed gaar ahaan teknolojiyadda casriga iyo baabuurta soo saarka taasoo ka dhigtay boqolkiiba 25 dhoofinta Yurub sanadkii 2000. Guushan run ahaantii mudane maru waxa ay horseed Jarmalka in uu noqdo oo u janjeersado waxa loo yaqaano dhaqaalaha caalamiga ah. Haddaba mudane maru haddaan intaas la fahanay qodobkeena lixaad wuxuu diiradda saarayaa Jarmalka iyo dhaqaalaha caalamiga ee qarnigii 21aad. Qarnigii 21aad Jarmalka ayaa weli awood lahaa warshadeed. Sanadkii 2020 wuxuu soo saaray run ahaantii wuxuu noqday kan saddexaad ee dhoofinta ugu badan dunida
saamiga ganacsiga iyo caalamiga. Wax soo saarka run ahaantii mudane maruu Jarmalka waxay muhiim ugu noqotay inuu abuuro waxa loo yaqaano tamarta cusboonaysiinta waxaana soo saaro waxayna tusinaysaa mar labaad inuu ku soo noqdo saaxadda dunida. Hase yeeshee hoggaankan wuxuu la yimiday caqabado cusub oo waaweyn. Caqabadaha waaweyn ee mustaqbalka haysta waxaa lagu 2000 sanadkii waxay soo xeshay dowladdu waxay maalgelisay 9.8 bilyan euro si loo casriyeeyo kaabayaasha dijitaalka iyo kuwa run ahaantii kuwa duwan. Si run ahaan tartanka sii kordhaya ee u dhexeeya Shiinaha iyo Maraykanku wuxuu run ahaantii ku qasbayaa Jarmalka inuu dib u qeexo mar labaad istaraatiijiyooyinkiisii warshadeed. Run ahaantii horumarkani wuxuu caddeynayaa mar labaad inay saaxadda ku soo laabatay tartankii Jarmalka. Waxaan soo gaarnay gabagabadii mowduuciina maanta. Haddaba taariikhda warshadeynta Jarmalku waa tusaale cajiib waa taariikh cajiib oo ku saabsan hal abuurnimo iyo adkaysi iyo isbeddelo badan. Laga soo bilaabo kacaankii warshadeed ee qarnigii 19aad ilaa iyo caqabadaha qarniga 21aad waxay isku dayaan mar labaad inay waddanku wuxuu muujinayaa kartida uu leeyahay inuu noqdo mar labaad oo ku hoggaamiyo dunida. Haddaba mudan iyo mar waxaa jira su'aal muhiima oo mudan inaan la isweydiiyo intaan soo xirin mowduuceena sidee bay Jarmalku mar labaad ugu soo laabteen guuldarrooyinkii iyagoo ahayn iyagoo ka soo guuray dowlado yaryar oo kala duwan una noqday mid ka mid ah quwadaha warshadeed ee ugu waaweyn ee adduunka. Waad mahadsantihiin sida fiican ee u dhagaysateen mowduuceena maanta ahaa Jarmalka laga bilaabo kacdoonkii warshadeed ilaa iyo awood adduunka dhaqaalaha meel kasi maray. Waa mahadsantihiin saa iyo kulanti dambe.